aaminta waa galab labdhadu baasha dhigatay socdaal ujeedkiisu uu yahay dalxiis ayaa dhinaca koonfureed uga baxnay Cadaado oo galguduud ka tirsan tiro dhalinyaro ah oo weli gabdho isugu jira ayaa safarka ugu weliya balse dhammaantood ka midaysan ku qanacsanaanta halka ay safarka u yihiin wax ka yar 2 kiiloomitir kolkii aan safar ahayn darbo waxaan galnay suugaanta roobka guga uu soo saaray ee rabbi ugu roonaaday dhulka deegaana ka tirsan gobolka galguduud markaan waxaan dhabaha kula kulannay wiil yar oo quudinaya digaag ama dooro kolba sidaa u taqaan sheeko gaaban oo annaga iyo inankay iswadaarsanay waxbaa iga kordhay iyo siduu u qanacsan yahay noloshiisa kadib 8 kiiloomitir oo uu socdaalkan uu qaatay hadda waxaan soo gaarnay goobta geedafurka u ah safarkeenna oo goob dalxiiska ku wacan dhirtu cagaar ayay saartay dabayshana lulaydo caleemaha geeddheerka ah dhalinta safarka ugu waleysay looga baxsi dhinaca koonfureed kadib waxay ka hadleen dareenkooda iyo sababta ugu weyn ay deegaankan u soo doorteen bismillaah magacaygu waa Sahra Maxamed Muuse waxaan joogaa magaalada Cadaado baadiyaheeda kulay maanta farxadii lama soo koobi karo aad iyo aad waxaan arkayaa meel aad u qurux badan waxaan kala sidoo kale la joogaa asxaabtayda qaaliga walaalahayga familygayga ma sha Allah aad u qurux badan run ahaantii markii la ii sheegay ma maleejin saan inuu qurux badan tahay laakiin se indhahaygan ku arkay in aad iyo aad u qurux badan tahay runtii shakhsiyan waa markii ugu horeysay oo aan imaado halkan sidaas ay tahay hadana waa meel jawigooda aad u qurux badan yahay cagaarkii dhirtana oo aad isku haysto taa oo ka turjumaysa roobkii dhawaan ka da'ay halkan inuu durba soo saara naqi looga barto cagaarna quruxda badnaa waa goob sidoo kale hawo bedel fiican aynu ka qaadanayno maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay aanaba dhinacna uga bixin gudaha magaalada Cadaado hadda joognaahi meel u jirta magaalada Cadaado xarunta ganacsiga dowladda Galmudug ugu yaraan 8 kiiloomitir run ahaantii waa meel aad iyo aad u dog leh run ahaantii ku haboon dalxiiska run ahaantii hadda waxaan ka soo leexanay beerta mustaqbal eeriyadeeda run ahaantii waxaan ka soo soconay in muddo ah waa meel aad iyo aad ugu muhiimsan dalxiiska run ahaantii raxmadda Alle ayaa aad ugu hortay si dabiici ah ayaad waxaad ugu jeedaan geeda aad u waaweyn iyo cawska iyo waxa isku baxay dalaga run ahaantii waa xilliga baldhaca waxaa maqlaya shimbiraha codkooda run ahaantii meeshaan oo kale waa meel aan isleeyahay inta badan galabta ka hor fursad kuma saadixin xilli roobaadyada sidan oo kale waa marka kaliya ee deegaanka u aqbalo dalxiis inaad waqti ku qaadato waxaana inta badan baadiyaha Cadaado u soo baxa dhalinyaro iyo dad kale oo doonaya in uga nastaan buuqa magaalada si ay maskaxdooda deegaanaan ugu helaan waxayna Cadaado ay ka mid tahay degmooyinka Galmudug kuwooda ugu mudan goobaha loo dalxiis tago xasan axmed maxamed kalsan TV Galmudug